السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. soo dhawaada asxaabey, barjeynaa inaad nabad iyo caafimaad qabtaan meel kastoo caalamka joogtaan. alxamdulilah dhankayga alxamdulilah inaan nabad iyo caafimaad inagula soo wadaago muuqaalkaneete. insha allah muuqaalkan maxaa uga hadli rabaa insha allah waa qadadeena maanta. maxaan ila sheergareyn rabaa insha allah muhiimadda ay leedahay qudaarta kala duwan, khaasatan qaraha, babayga, cambaha hadda rabto maxaa la dhahaa isbaandhes qudaarta noocyadeeda kala duwan, khaasatan qaraha iyo babayga. ana qare babay hadda meesha igu jiro. qadadeenana way noo dhinac taalaayo maasha allah baastada iyo maaragta suuga ah sidaa arkaysaan. walaalayaal soo dhawaada, waan mahadsantiin meel kasta caalamka joogtaan. qofka nagu cusub waxaan leenahay soo dhawow, qofka hore noola jooga waa mahadsan tahay. channelkiina waaye, anigana waxaa waaye xildhibaanadiina golaha deegaanka waaye. soo dhawaada khiyaarta. maxaan nii sheegi rabaa insha allah tacaala sidaa u ogtihiinba maxaan niila wadaagi rabaa bidnillaahi tacaala muhiimadda ay leedahay qudaarta ay u leedahay caafimaadka jirka iyo maaragta kor u qaadka nafaqada qof yar qof weyn maaragta dhammaan bini aadanka say muhiim ugu tahay. qudaarta khaasatan qaraha waa biyo soma maxaa dhihi jire saaid uu ugu fiican yahay jirka bini aadanka inaa la cuno saaid caafimaadka ugu fiican tahay. maxaa la dhahaa babaygan maasha allah. babayga waxa waaye caloosha ayuu maaragta saaid u saacideeyaa, nafaqana wuu leeyahay. hadda waxaa ka dhigi kartaa cabitaana ka dhigi kartaa, waa shiida kartaa, sidooda ayaa ku cuni kartaa oo maaragta sidii maaragta caadiga ah sidaas uu u jarjaran yahay hadda oo ujeedaan ayaa maaragta u cuni kartaa, sidaa doonta ayaa ka dhigi kartaa. marka maasha allah intii og way ogtahay, inta ogeen waxaan leeyahay isku ogaada qudaarta qaraha, babayga, dhammaan qudaarta saaid ayay u fiican tahay. qofba nooc ayuu jecel yahay, laakiin maaragta jirka bini aadanka wuxuu u badan yahay saaid biyo iyo maaragta biyo u badan yahay. marka qarahana saaid ayuu ugu fiican yahay oo maaragta wuxuu ka saacideynaya inuu jirkaada hoos uu kasoo maaragta oo biyihiisa oo ka ahaato. maxaa la dhahaa kan kaleete babaygana maasha allah waaye oo caloosha maaragta qofka hadduu qofka cuno markasta maaragta calooshiisa ma fadhiisanayso, gaas iyo xaaseeto wuu ka caafimaad qabayaa oo maaragta soomaalida badanaa gaas iyo waxaas ka sheegtaan. babayga maasha allah aad ayuu u saacideynayaa, ayuu ku saacideynayaa badanaa caloosha maaragta caloosha inay soconin oo istaagta ayaa keenaysaa, ayaa maaragta xanuuno badan ay keentaa. marka wuxuu ka hortagayaa calooshaada inay istaagto. sidoo kaleete qarahana maasha allah waaye, isku ogaada axbaabi saaid hal iskugu daryeelo saaid iskugu daryeela inaa maaragta ku darsatid
cuntadaada maalinlaha inaad ku darsatid ku dadaal maalin kasta qudaar aysan kaa maqnaanin. Waa inay daily lifekaada ka ahaataa qayb maaragtay daily foodkaada qudaarta ama cabitaan ka dhigo ama sideeda u cun. Marka waa inay maaragtay aad ku talagashaa maaragtay aad ay muhiim u tahay runtii caruurta iyo waayeelka iyo maaragtay dhalinyaro dadka dhan aad ay ugu fiican tahay. Cuntada maaragtay way badan tahay qudaarta liinta kamida qaraha waxaa kamida maxaa la dhahaa ii sheeg cambaha kamida bad ani hadda maanta waxaan haystaa qare iyo waxaan haystaa kii ii sheeg qare iyo waxaan haystaa babaay. Marka labadaasaan ila wadaagi rabaa aad ayay muhiim u yihiin runtii oo maaragtay qaleylka jirka maaragtay ma qalalayo jirkaada maasha Allah noqonaysaa ii sheeg biyaha jirkaada safi ahaanayaan insha Allah calooshaadana ma istaagayso haddaad ku darsatid maaragtay cuntadaada ama cabitaankaada maalinlaha haddaad ka dhigatid. Sidoo kale biyaha cad aad zaaid u badsatid oo maaragtay biyahaada cadna ee aad u badnaadaan caafimaadka ayay maaragtay maasha Allah qayb ka tahay. Qudaarta iyo cabitaanka waa maaragtay aad iyo aad u fiican yihiin. soo dhawaada asxaabe intaas ayaan maanta niila sheer gareyn rabaa insha Allah ayaan niila sheer gareynayaan dhehe hadadeedana way maaragtay inoo diyaarsan tahay inkastoo markii karinayna iyo waxaasaan niila sheer gareynin maaragtay ujeedkayga maanta ma ahan inaan niila sheer gareeyo qadada laakiin waxaa waaye inaan qudaarta inii xasuusiyo aan idhaha qudaarta waxaa waaye muhiim waaye aad muhiim noogu tahay caafimaadkeena aad inoo anfacaysaa maaragtay zaaid ha loo isticmaalo insha Allah qaali ma ahan waa wax maaragtay raqiis ah oo kuley anaka waxaan joognaa waxaa waaye sheek wadamadan ognahay waa raqiis intaan ognahay. Marka insha Allah tacaala ilaahay ka rajeynaa inuu Ilaahay idin fududeeyo inaad ku darsataan maaragtay cuntadiina maalinlaha ah maaragtay insha Allah tacaala waa maaragtay caafimaad waa ii sheeg waa wax maaragtay ka qayb qaadanaya caafimaadkaada oo kor u qaadayo qudaarta insha Allah tacaala ku darsada maxaa la yiraahdaa saaxiibayaal inta awoodo rajeynaa in aad awoodi doontiin ilaa idinkiis oo Ilaahay idin fududeeyo Ilaahay idin sakhiro inaa maaragtay qudaarta badsataan qof kasta ha ku dadaalo akhyaaray iyadoo kala nooc ayaa maaragtay cuni kartaa qaraha horta zaaid waa maaragtay maasha Allah waxa oo maaragtay cajiib ah waaye babaayga isagana maaragtay caloosha zaaid ugu fiican yahay iyo vitamiinisna uu leeyahay. Marka akhyaaray isku ogaada la isku ogaado aad iyo aad la iskugu ogaado akhyaaray yaan la moogaanin qudaarta insha Allah qudaarta yaan la moogaanin la isku ogaado axbaabi sidaas ayaan niila wadaagayaa iyo niigula talinayaa insha Allah maaragtay ilmaha iyo maaragtay dadka waaweyn iyo maaragtay dhalinyarada cunto qalano iyo maaragtay cunto adag oo la cuno maaragtay waxaa aad iyo aad ugu muhiimsan oo in lagu darsado ay aad muhiim u tahay qudaarta saaxiibayaal sida u ogaada inta og way og tahay inta ogeen wayna ogaataa oo maaragtay caafimaadkaada inay qayb weyn ee ka qaadanayso oo kor u qaadayso qudaarta inaa og tahay muhiim ku tahay
waxaan rajeynaa maanta kadib insha allah hadduu kusoo gaaro videogan inaa ogaa doontid in qudaarta adiga muhiim ku tahay oonay muhiim zaaid noo tahay dhiiga iyo jirka biyihiisa iyo fitaminiska iyo dhammaan ka qayb qaadata qudaarta inkastoo noocyo iyo qayb ay kala qaabilsantahay haddana nooc kasta oo cuntid faa'iido weyn ayaa ka helaysaa. Marka saaxiibayaal kor loo qaado in qudaarta la cuno zaaid qudaarta loo cuno ayaan dhihi karaa oo nigula talinayaa insha allah tacaala aniga nafteyda iyo idinkaba khayr iyo caafimaad ayaan idin rajeynayaa iyo horumar dhammaantiinba iyo dhammaanteenba meel kastoo joogtaan nabad iyo caafimaad ku noolaada ayaan idin leeyahay saaxiibayaal. halkaasi ay maraysaa maanta qadadeena watana maqabeer rabaa insha allah. marka qudaartiina yar dhab soo siisto kasta yaroo haystid haddii taa qarash yaraan haysatid inta yarista haystid kala qaybso qaybta qudaarta weligaada iska iloobin xasuusnow marnaba iska iloobin. aad baan idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bye bye aan idin leeyahay horumar wacan saaxiibayaal. ilaahay